soo dhawaada marka la daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir oo aadna ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa dagaalada ka socda waddanka Yemen ayaa lagu soo waramaya in ay sii xoogaysanayaan iyadoo la sheegaya dagaalka inuu ku sii faafayo gobollo kala duwan gaar ahaan gobolka Shabwa halkaasi oo la sheegayo iska horimaadeen ay ka qarxeen dagaaladan ayaa la sheegayaa shalay galinkii dambe in ay bilowdeen iyadoo ciidamada dawladda Yemen ay sheegeen inay iska caabiyeen isku dayo ay xoutiyiintu ku doonayeen inay ku soo galaan dhowr jiho oo dagaal oo ku yaala galbeedka gobolka Shabwa ciidamada dawladda ayaa sheegay in xoutiyiinta laga hor istaagay inay horumar ka sameeyaan furimaha dagaalka isla markaasna dhaqdhaqaaqa la gaarsiiyey khasaare xooggan inkastoo aysan jirin cid madax bannaan oo xaqiijin karta sheegashadan diyuuradaha aan duuriyaha lahayn ayaa sidoo kale fuliyey duqaymo kuwaasi oo lagu beegsaday fariisimo ay xoutiyiintu ku leeyihiin goobaha ay ka dagaalamayaan ee dagaalka ka socdo xiisadda ayaa sii xoogaysatay kadib markii xoutiyiinta madaafiic iyo diyuuradaha aan duuriyaha lahayn ay ku weerareen fariisimaha ciidamada dawladda ee degmada Bayhan ee gobolka Shabwa ila deegaanka ka tirsan ayaa waxa ay sheegeen in 3 daroon ay beegsadeen ciidamada difaaca Shabwa ee aaga Al-Qiyim madaafiic ayaa sidoo kale ku dhacday deegaano ay rayidku ku nool yihiin oo ku yaal saadiyad kuwaasi oo waxyeello u geystay beeraha dadka deegaanka inkastoo aan la soo sheegin wax khasaare nafeed ah weeraradan ayaa laga cabsi qabaa in sidoo kale ay saameyn ku yeeshaan dadka rayidka ah isla war arrimahan la xiriira gudoomiyaha golaha hogaaminta madaxtooyada Yemen Rashid Al-Alimi ayaa ku nuuxnuuxsaday in tilaabo kasta oo xoutiyiintu qaadaan laga jawaabi doono waxaana ugu baaqay xoutiyiinta inay hubka dhigaan oo ay siyaasadda iyo doorashooyinka kula tartamaan dhinacyada kale ee Yemen sida hadalka oo u dhigay ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka xoutiyiinta oo la xiriira sheegashadan ka soo yeeraysa ciidamada iyo hadallada madaxweyne Rashid Al-Alimi wararka Yemen inta aynu ku dhaafno waxaynu eegaynaa wararka la xiriira Ruushka gaar ahaan Putin oo si adag uga hadlay maraakiibta Ruushka uu leeyahay ee wadamada Yurub ay badaha caalamiga ka qabsanayaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa arbacadii shalay ahayd wuxuu ku hanjabay in dalkiisa uu qabsan karo maraakiibta ay leeyihiin wadamada Yurub taas oo jawaab u noqonaysa qorshaha midowga Yurub ee lagu iibinayo shixnadaha saaran maraakiibta Ruushka ee Yurub ay ku soo rogtay cunaqabataynta ee la qabto wadamo iyo shirkado reer Yurub ayaa muddooyinkii dambe waxay gacanta ku dhigayeen maraakiib lagu eedeynayo inay qaadaan shidaalka Ruushka iyagoo jibinaya cunaqabataynta Yurub ee lagu beegsanayo dakhliga shidaalka ee Ruushka cunaqabatayntan cusub oo tii ugu dambeysay la ansixiyay bishii hore ayaa u ogolaanaysa wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub inay iibiyaan shidaalka ama shixnadaha kale ee laga qabto maraakiibta Ruushka uu leeyahay Putin ayaa tilaabooyinkan ku tilmaamay sida hadalku u yiri burcad badeednimo iyo dhac isagoo sheegay in Ruushka uu qaadi doono tilaabooyin jawaab celina madaxweynaha Ruushka ayaa intaa ku daray in Moscow ay tilaabo ka qaadi karto maraakiibtaasi reer Yurub ay leeyihiin meel kasta ay ku aragto isla markaasna arrintan ay tahay lagama maarmaan dhinaca kale dukumentiyo maxkamadeed oo Sweden ah ayaa muujinaya in Stockholm ay Ukraine ku wareejin doonto markab Ruushka uu leeyahay oo la qabtay kaas oo looga shakisan yahay inuu siday qamadi laga soo qaaday dhulalka Ukraine ee Ruushka uu haysto arrinta markaas maraysa xiisadana waxay leeyahay waa ay ka daraysaa
markan xagga Ciraaq iyo bariga dhexe aynu dib ugu laabanno iyadoo lagu soo waramayo in Mareykanka ciidankiisa uu kala bixi doono bisha soo socota waddanka Ciraaq ayaa hadda waxaa soo baxaya warar xaqiijinaya in lagu socdo waqtigii loogu talagalay arrinkaasi. ciidamada Mareykanka ayaa la filayaa in ay dhammaystiraan ka bixitaankooda Ciraaq ugu dambeyn 3 bisha September ee fooda inagu soo haysa sida ay sheegeen saraakiil taasi oo soo afjari doonta joogitaan military oo Mareykanku uu ku joogay waddankaasi tan iyo markii duulaanka uu ku qaaday 2003 ee xukunka laga tuuray dowladdii Saddam Hussein. Washington iyo Baghdad ayaa sanadkii 2024 waxay ku heshiiyeen in si tartiib ah loo soo afjaro isbahaysiga uu hogaaminayo Mareykanka ee lagula dagaalamayay kooxda Daesh ama ISIS. ciidamada Mareykanka ayaa sanadkii hore ka baxay saldhigyo ku yaal inta badan gobolada Ciraaq balse waxay sii joogeen deegaanada ismaamulka Kurdistan ee waqooyiga waddanka. saldhigyadaasi ayaa marar badan la kulmay weeraro gaar ahaan tan iyo markii Israa'iil iyo Mareykanku 28 February ay bilaabeen dagaalka ka dhanka waddanka Iiraan. ra'iisul wasaaraha waddanka Ciraaq Ali al-Zaidi ayaa la kulmay Admiral Brett Cooper oo ah hogaamiyaha taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka CENTCOM. bayaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ciraaq ayaa lagu sheegay in 3 September loo xaqiijiyay Ciraaq inay tahay xilliga kama dambaysta ah ee Mareykanku soo afjarayo howlgalka military ee isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaalanka Daesh iyo markaasi in la soo afjaro joogitaanka Mareykanka ee waddanka Ciraaq. waa hagaag waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee xiisadaha colaadeed ee gobolka bariga dhexe. Iiraan oo si adag uga jawaabtay hadalla ka soo yeeray Trump. waxaa kaloo soo baxay war weyn oo la yaab leh. waxaa la leeyahay askarta saaran markabka Abraham Lincoln ee Mareykanku uu leeyahay ayaa qaarkood waxaa leeyahay waa la qabqabanayaaba badday rabaan isku tuuraan. sheeko la yaab leh ayaana kaga haynaa amuurtan. wararkaas iyo qodobo kale intaan u gudbin aynu ku hakanno qadar xayisiina. waa tahay xagga Israa'iil iyo Mareykanka haddii aynu jaleecno iyo wararka ugu dambeeya waxaan gudagalaynaa Mareykanka oo si adag u cambaaraynaya hadalla ka soo yeeray wasiir ka tirsan xukuumadda Israa'iil iyadoo la sheegayo in kala aragti duwanaanshaha meelaha qaarkood ee u dhaxaysa Israa'iil iyo Mareykanka ay xoogaysanayso. aynu eegno wararkii ugu dambeeyay amuurahani. maamulka Mareykanka ayaa dhaliilay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Israel Katz kadib markii uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay sii joogi doonaan koonfurta Lebanon. waaxda amuuraha dibadda ee waddanka Mareykanka ayaa sheegtay in joogitaan military oo joogto ah uusan waafaqsanayn heshiiska ay dhinacyadu gaareen isla markaasna uu halis gelinayo nabadda iyo ammaanka labada waddan. Washington ayaa sheegtay inay si buuxda u taageerayso madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee Lebanon. Katz ayaa daboolka ka qaaday in ciidanka Israa'iil ay sii joogi doonaan aagga waxa ugu yeeray ammaanka ee Lebanon, Suuriya iyo Gaza. Mareykanka ayaa waxay sheegayaan in heshiisku uu dhigayo in ciidamada Israa'iil si tartiib ah dib loogu raro iyadoo tilaabadaasna lagu xirayo hubka dhigista Xisbullah iyo burburinta kaabayaasheeda. ciidamada Lebanon ayaa hadda la wareegaya aagaggii hore ee ciidanka Israa'iil ay ka baxeen. waa tahay warkaasna inta aynu ku dhaafno madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ku andacoonayaa in Mareykanka gacanta uu ku hayo marinka Hormuz inkastoo arrintaasi sida qobrada iyo warbaahintu ay sheegayso warkaas inuusan ahayn war rasmi ah. Iiraan ayaa haddana arrintan ka jawaabtay. Iiraan ayaa mar kale waxay ku celisay in marinka Hormuz weli uu xiran yahay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in Washington ay si buuxda gacanta uga hayso marinka iyadoo adeegsanaysa xanibaadda ugu yeeray derbiga birta ah. hay-adda Iiraan u qaabilsan marinka gacanka Bershiya ayaa qoraal ay ku daabacday barteeda X
waxay ku sheegtay in hadallada saraakiisha Mareykanka aysan waxba ka bedelayn xaqiiqda jirta waxaana ay sheegtay in Mareykanka Hormuus aan dib loo furi doonin ilaa iyo shuruudaha Iiraan laga aqbalayo Iiraan ayaa hay-adan bishii May u samaysay in ay maamusho maraakiibta gooshaysa Mareykanka Hormuus waaye warka marka laga tago saakay waxaa soo baxay war weyn askarta Mareykanka ee markabkan weyn saaran oo kuma kun gaaraysa ayaa waxa la sheegayaa in qaarkood ay dawcaan badayna isku tuuraan macnaha maskaxda laga galay daal badanna waa jira haddaba aynu eegno warbixin ay qortay mid ka mid ah jaraa'idka ka soo baxa magaalada London qaar ka mid ah ciidamada saaran markabka dayuuradaha xambaaraha ee Mareykanku leeyahay ee Abraham Lincoln ayaa isku dayay inay badda isku tuuraan xilli shaqaalaha markabku uu wajahayo daal iyo cadaadis maskaxeed oo ka dhashay howlgal military oo muddo dheer socday sidaas waxaa qoray wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada London markabka oo ay saaran yihiin in ka badan 5,000 oo ciidamada Mareyniska ayaa galay bishii 9aad ee howlgalkiisa waxaana ciidamada iyo shaqaalaha markabka saaran ay sheegeen inay shaqeynayeen 250 maalmood oo xiriir ah iyagoo oogada markabkaasina ku sugnaa hal marna dhulka uma degin taasi oo noqotay rikoor cusub oo ah in markaasi markii ugu horeysay waqti intaasi la eg ciidamo ay saarnaadaan maraakiibta dagaalka warbixinta ayaa waxay sheegtay in qoysaska ciidamada iyo xubno ka tirsan aqalka koongareeska Mareykanka ay walaac ka muujiyeen xaaladda caafimaadka maskaxeed ee shaqaalaha haweeney saygeeda uu saaran yahay markabka ayaa waxay sheegtay in ninkeeda uu isku dayay in uu badda isku tuuro kadib markii howlgalka markabka marar badan la kordhiyey dhacdo kale askari kale ayaa waxaa la sheegay in uu ka badbaadiyey saaxiibkiis in uu markabka ka boodo oo badda isku tuuro qoysaska ayaa sidoo kale waxay ka cabanayaan xaaladaha nololeed ee adag ee ay ka mid yihiin musqulaha markabka oo ciladaysan meelaha lagu qubaysto oo caaraystay mashiinada dharka lagu dhaqdo oo shaqayn waayey biyaha kulul oo yaraaday iyo cunto aan ku filnayn oo ciidamada la siinayo markabka USS Abraham Lincoln ayaa 21 November 2025 wuxuu ka baxay magaalada San Diego waxaana markii hore la qorsheeyay in uu aado dhanka badda Pacific laakiin markii dambe waxaa loo wareejiyay bariga dhexe sabab la xiriira dagaalka Iiraan ciidamada badda Mareykanka ayaa waxay qireen culays ka dhashay howlgallada waqtiga dheer in ay jirto laakiin waxay beeniyeen wararka sheegaya in xaaladdu ay tahay mid markaasi isku day dil gaartay waxaana intaasi ay ku dareen in markabka ay saaran yihiin khubaro caafimaad iyo la taliyaal taageeraya ciidamada gaar ahaan xagga maskaxda ka taageeraya arrintu marka waxay noqotay arrin adag waa la qabanaya baa layidhi askarta qaarkood badda in isku tuuraan bay rabaan macnaha waxay dhibsadeenba shaqadan ay ku jiraan marka waxay leeyihin aan dhibanno badda bay isku tuurayaanba waa hagaag qodobkaasna intaas aynu kaga gudubno dhinaca kale waxaa la sheegayaa wadahadaladii Cumaan iyo Iiraan u socday in ilaa iyo hadda aysan jirin wax horumar ah oo laga sameeyey inkastoo la sheegayo heshiis inuu dhow yahay haddaba wixii warar ah ee arrimahan ay ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xulashada wararka waxaana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir intaanan ka bixin barnaamijyadan aynu soo gelinayno telefishinka kale ee RTV xalay waxaan soo gelinay sheeko xiisa leh oo ku saabsan marinada badda ee caalamka iyo halista imika ka jirta gaar ahaan Mareykanka Hormuus baabalmadab iyo sidoo kale gacanka Taiwan iyo sidoo kale badda madow iyadoo la sheegayo in halkaasi halis weyn ay ka jirto haddaba barnaamijkaasi waa daawan kartaan waa diyaar waxaan kaloo soo gelinaynaa goordhow barnaamij isna ka hadlaya dagaalkan horta Ukraine ka socda 5 sano ku dhawaad yaa maalgeliya dhammaan warbixinadaasi iyo kuwa kale
ayaan soo gelin doonaa si aad ula socotaan barnaamijyada aarna fadlan ku soo biir inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii waa inoo mar kale insha allah nabadgelyo